madaxweyne dadkaani meeshaan laamigan shiinaysna ma dhisin talyaanina ma dhisin cid kalena ma dhisin waxaad arkaysay waa dad tashaday oo reer galmudug ah oo ku talagalay inay galmudug wajiga ay leedahay ka bedelaan ay qurxiyaan laamigeeda iyo wadooyinkeeda iyo muxuu ahaay bilicdeedana ay dib u soo celiyaan waxaa kamid ah madaxweyne wax qabadkan aad arkaysid waa bulsho wax isku darsatay waxaa qayb ka ah adiga shakhsiyadaada adoo aan madaxweyne ka ahayn galmudug ayaad waxaad meeshaan ku darsatay contributionka la aruurinayay qayb kamid ah ayay kamid tahay waxaad ku lahayd oo dhaqaalihi aad dhiibtay laga soo bixiyay 170 fuusto oo laami ah runtii wax badan ayay tartay waxaad ahayd ninkii koobaad ee kaalinta ugu badan ka qaatay reer galmudug oo dhan ama Soomaaliya oo dhanba ee laamigan muxuu ahay qayb ka ahay madaxweyne akhyaarta hawshan wada waxay mudan yihiin bogaadin iyo muxuu ahay iyo dhiirigelin iyo mahadcelin fursad bay noo tahay maanta inaan ka soo qayb galno ama aan aragno ogaano u koorgalno xoogaal buuxa u noqono halka uu marayo jidkii laga soo bilaabay degmada Gurceel oo ay reer Gurceel ama reer galmudug isu taageen inay iyagu si isxilqaan ah ku dhistaan ama ay ku bilaabaan meel kasta oo ay gaaraanba waxaan runtii bogaadinaynaa dadaalkaas isxilqaankaas iska wax u qabsadaas sida dadku ay isku tashadeen reer galmudug aad baan bogaadinaynaa oo uga bahad celinaynaa dhowr jeerna waa sheegno waxaan nidhi reer galmudug waxay caan ku yihiin wixii ay isu taagaan waa ka mir dhaliyaan meel fiican baa la soo gaarsiiyey waxaa la marayaa qayb laamiya iyo dhowr iyo 10 kiiloomitir oo laamigii kaliya u dhiman yahay oo inta kale la hagaajiyey waxaan rabaa inaan ka caddeeyo dowladda galmudugna intay kari karto waa garab taagan tahay jidkan deeq bixiyaasha caalamka oo dib u dhiska dalka naga kaalmeeyana ballanqaad baan ka haysanaa waxaan rajaynaynaa sida u dhaqsiyaha badan ballanqaadkaas inuu nagu bilowdo jid 50 kiiloomitir ah ayaan hadda ku jirnaa wada hadaladiisii oo bilow yihiin oo ay hadda bilaaban rabto haddii ilaahay yiraahdo in lagu sameeyo qiimayn ama feasibility study lagu sameeyo markaan wax qabsanno isku tashanno ayaan helaynaa cidna taageerta annagoon tallaab qaadin taageero heli mayno saa darteed tallaab baan qaadnay weliba tallaab weyn baan qaadnay taageerana waa helaynaa jidkana waa dhammaystirmayaa meeshiinana ka wada waana garab taaganaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.